halkan oo ah isbitaalka Ummah ee magaalada Muqdisho waxa la soo gaarsiiyay dhaawacyo dhowr ah oo ay waxyeello ka soo gaartay qarax 30 daqiiqo ka hor ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho wuxuuna qaraxaasi galaafsaday dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dad shacab ah oo goobtaasi ku caawinayay waxa sidoo kale wali jira xabadal iyo qaraxyo laga maqlayo xeebta Liido ee magaalada Muqdisho inkastoo aan wali laheenin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa caawa ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah goobjoogayaasha xilliga uu qaraxa dhacayay oo la hadlay telefishinka Universal ayaa inoogu waramay sida ay xaaladda ahayd markii uu qaraxa dhacay saaxiibo wallahi niyo ilaahay doo argagaxsanahay goobta waxay ka dhaceen waa Liido waa hotel Liido ku yaalo magaciisa uu wareeganayo oo Liido agteeda niyo anagu taagan baa qarax dhacay nin xun oo jaakad wato buu ahaa ninkan waa arkay ma garatay qarax markuu dhacay dadkii waa wada dhaawacmeen aniga alxamdulillah rabbil caalamiin meesha taagnaa ilaahay waa mahad iskale waxba ima gaarin laakiin dadku waa baaba'een waa saayid u dhaawacmeen dad baa ku go'ay meesha dad yar ma ahan isbitaaladii gurmad male mootooyinkii baabuuradii gurmad male dadkii waan ku rafaadnay isbitaal walbaan geeyno waa nagu soo celiyo umma kamid yahay isbitaalada kale hadda u qaadnay waxa waaye meesha dad baa ku go'ay wallaahi inayga waxay qabteen aniga nin hotelka sii galaayo oo iridda asagoo taagan ninka askariga ku soo cararay ninka askariga markuu ku soo cartayna ku soo ordayna ninkan wuu istaabtay Ismaan Awis Bahar telefishinka Universal magaalada Muqdisho halkan waa isbitaalka Ummah ku yaala degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir waxa la keenay dadkii dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii ismiidaaminta ee daqiiqado ka hor ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho dadkii ugu badnaa ayaa halkan la keenay oo isugu jira dad dhalinyaro ah dad waaweyn waxa la tacaalayaa dhaawacyada halkan ku sugan maadaama dadkii ugu badnaa halkan la keenay qaarkoodna waa la celiyay emergency ayaa hadda lagu jira oo dad badan oo halkan dhaawac uu goobta ka soo gaaray ayaa lagu dabiibaya qof kamid ah dadkii goobjoog u ah markii wax dhacayeen ayaa la hadlay TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxaana ka warbixinaya bal sida ay ahayd goobta wax ka dhaceen inta aysan wax ka dhicin kor saaxiibo wallahi niyo ilaahay doo argagaxsanahay goobta waxay ka dhaceen waa Liido waa hotel Liido ku yaalo magaciisa uu wareeganayo oo Liido agteeda niyo anagu taagan baa qarax dhacay nin xun oo jaakad wato buu ahaa ninkan waa arkay ma garatay qarax markuu dhacay dadkii waa wada dhaawacmeen aniga alxamdulillah rabbil caalamiin meesha taagnaa ilaahay waa mahad iskale waxba ima gaarin laakiin dadku waa baaba'een waa saayid u dhaawacmeen dad baa ku go'ay meesha dad yar ma ahan isbitaaladii gurmad male mootooyinkii baabuuradii gurmad male dadkii waan ku rafaadnay isbitaal walbaan geeyno waa nagu soo celiyo umma kamid yahay isbitaalada kale hadda u qaadnay waxa waaye meesha dad baa ku go'ay wallaahi inayga waxay qabteen aniga nin hotelka sii galaayo oo iridda asagoo taagan ninka askariga ku soo cararay ninka askariga markuu ku soo cartayna ku soo ordayna ninkan wuu istaabtay waxa xusid mudan in daqiiqado ka hor weerar ismiidaamin oo ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho warar ayaa sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ka dhex dagaalamayaan mid kamid ah hoteelada goobta ku yaala waxa si toos ah in la socodsiin doona wixii ku soo kordha weerarka caawa lagu qaaday mid kamid ah goobaha lagu caweeyo oo ku taala xeebta Liido ee Muqdisho waana Soomaaliya idin kala soo hadlayo goobta agaarka waana Soomaaliya idin kala soo hadlayo isbitaalka Ummah Muqdisho